ciyaaraha kubadda cagta ayaa inta badan kaalmaha hore ka gala balwadaha koobaad ee ay leeyihiin dhalinyaradu waxaanay markasta qayb ka yihiin isdhexgalka. haddaba xirfadda kubadda cagta ayaa noqonaysa mihnada ugu badan ee ay ka siman yihiin ciyaaristeeda waayeelka iyo dhalinyaradu. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay xiise gaarana yeeshay ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka Togdheer, waxaana sababay garoomada casriga ee lagu goglay rooga cagaaran oo bulshadu waqti walba ku ciyaarto siiba xilliyada habeenkii. shantii sane ugu dambeysay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa ku soo badanayay garoomada casriga ee leh rooga cagaaran, waxaana xilliyada dambe ee habeenkii bulshadu jaanis u heshaa inay ku ciyaaraan kubadda. bulsho badan oo danley ama maalintii aan waqti u helin ciyaarista kubadda cagta ayaa hadda jaanis u hela xilliyada habeenkii inay ku ciyaaraan oo ay xoojiyaan xirfadooda kubadda cagta. kani waa garoonka kubadda cagta ee Burco Sport Center oo ka mid ah garoomada casriga ee lagu goglay rooga cagaaran. xilliyada habeenkii waxa mashquuliya bulshada ku aadan inay ku ciyaaraan kubadda cagta. Cabdikariin Marayare waa macallin wax ka dhiga qaar ka mid ah dugsiyada gobolka Togdheer, waxaanu kula kulannay gudaha garoonka. warbixin koobanna wuxuu naga siiyay sababta ka dambeysay inuu waqtigani dib ugu soo laabto ciyaarista kubadda cagta. garoonadii wuxuu soo nooleeyeen kubaddii bay soo nooleeyeen garoonadan yaryari 2004 aniga tusaale ahaan ugu dambeysay kubaddan ciyaaro macdaalika haddana roogii baan la kowsaday oo markii rooga la bilaabay dib baan ugu soo noqday kubaddii waan ciyaaraa. waa caafimaad qayb ka mid ah caafimaadka waa hore loo yidhi jismu saliim ayaa caqli saliim xambaarsan. waa qayb ka mid ah maaragtay activity-ga qofku qof buu noqonayaa dhisan oo maaragtay xanuuno badan bay dawo ka tahay. dhinac kale qabyaaladda bay kala dagaalamaysaa sportska hadda soo noolaaday, dhinac kale tahriibkii bay kala dagaalamaysaa. waxa weeye dhalinyaro badan intay xataa kuwa shaqeeyay kuwii aan shaqeynayn baa dhex galay. marka hore waxaad moodaysaa in la kala yar qaybsanaa oo qolna kubadda ku mashquulsan tahay qolna waxbarashadooda ama waxyaalahooda kale, laakiin hadda waa laga wada bahaway waa la isla wadataa. marka kubadda aad bay u soo noqotay gobolka Togdheer gaar ahaan. maxamed cabdiraxmaan shiine waxa uu ka mid yahay ciyaartoydii hore ee gobolka Togdheer. muddo kadib oo uu ka maqnaa kubadda hadda dib ayuu ugu soo laabtay, waxaanu sabab uga dhigay inay qayb ka ahaayeen garoomada casriga ee dambe. kooxda xanaad salaamaya TV-ga Ariel kabacdina waxaan salaamayaa Maxamed Jookar, aad baad u mahadsantahay. kulay dhalintii kubadda ka fadhiistay culculsaay dhammaan way kasoo wada noqdeen. taana waxaa sababay garoonada dooga markii hore looma hayn meel lagu ciyaaro ama meel dhalintu isku aragto, laakiin marka fikrad ahaan waxaan u arkaa qof walba bulshada oo gobolka Togdheer waliba sportska inuu ku soo noqday. taana waa wax aad lagu mahadnaqo Ilaahay oo farxad weyn gelisay dhalintii ama balwada ama qabyaaladda ama tahriibta lagaga nastay. waliba gobolka Togdheer xaaladdan la joogo bahda sportska kubadda aad bay soo noqotay, rajadeediina waan aragnay. ta kale waxa iyaduna aad ugu sii mahadnaqaya dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo imikana garoonkii weynaayo Alamsey Stadium la dhigi doono dooga. taana waxa weeye waa farxad weyn aad u weyn. waxaan sii rajaynayaa garoonada dooga kale way nagu yar yihiin, laakiin inay ka sii bataan sida caasimadda ayaan jecelahay. run ahaantii markaas si eegto dadkii bilaadanka Ilaahay abuurtay ee sportska ahaa ama kii balwad galay ama kii qiiraad galay uu ku soo noqday. marka taana waxa sababaya in gobolka Togdheer kubaddii lagu soo noqday ayaa rajadeedu tahay. ciyaaryahan Cabdi Aadan isna wuxuu rajaynayaa inay sii badan doonaan garoomada casriga ee lagu goglay rooga cagaaran. baa fiican in ragii hore ciyaari jiray aad sarki jiray bad garoomada isugu yimaanaysan oo garoomada isku soo dhex waayo berigii hore dhalinyarada waqtigii dambe intii dambe ciyaari jirtay baa ciyaari jirtay. hadda ragii roogii waxa ciyaari ragii hore ciyaari jiray gobolada soo ciyaari jiray iyo ragii hore gobolka joogayba wixii shaqaystay wixii weynaaday wixii dhalinyarada dambe way isugu yimaanayaan. maanta kulli Ilaahay baa mahad garoomada soo bataan dhalinyaradina way sii dhexgalaysan ragiina way sii dhexgalayaan. ma sha Allah in ka sii bataan waan jecelahay garoomada roogu sii bataan. huwa barilla lama beesha caalamka kale noqda guusha beegsada oo hela bilada sare. garoomadan casriga ee yaalla rooga cagaaran ayaa ka qayb qaatay inay xiise gaara ay yeelato kubadda cagta gobolka Togdheer. maxamed xasan diiriye maxamed Jookar, telefishinka caalamiga Ariel TV, magaalada Burco.